على حرارو أنيقو أبتليبانا one penny سلطان دي جي one penny أنا كم قادم حيسيسك أدو سمينيس وحبك كم قادم ما دي كان كقادم شان يتبان كون أو دولار حيسيسك أدو سمينيس دي جي سبير يسرر كم قادم waxa weydiisay ugu yaraan dad milyan ka badan anigu sultan serar iyo DJ Zubair Scandinavia markay joogeen one penny anu kama qaadan waa hagaag daawadayaal kulanti waxaan wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos idin ka soo gudbinayno studio-han ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka sida aad arkaysaan muuqaalkan waxa garabkayga bidix fadhiya Abtiliban oo inta badan majaajilooyinka aadka looga yaqaan waliba Snapchat-ka dad fara badan oo malaayiin ay ku xidhan yihiin hadda waxa jira dagaal aan u bixiyay dagaalka Snapchat-ka ee inta badan u dhaxeeya fanaaniinta iyo dadka dhinaca madadaalada qaabilsan ee Soomaalida arrimahaasi ayaa waxaan yar biyaamin doonaa dagaal dhex maray oo dhinaca afka ah Abtiliban oo garabkayga bidix fadhiya iyo DJ Suber iyo waliba Sultan Serar oo labada kaleba ay inaga maqan yihiin laakiin aynu eegi doono bal dhinaca marka hore Abtiliban Abtiliban bal marka hore waxaad sheegtaa sida wax u bilaabmeen horta waxay wax u bilaabmeen fanaanka la yiraahdo Sultan Serar waa nin in badan aan wada socono saaxiib ahayn Scandinavia show looga soo qabtay wadamada Scandinavia okay showgaas waqti badan aan galay rag iyo dumarba waxay sugayeen showga wadanka lagu soo hormari doono aniga waxaan ahaa marka qof always sheega wadanka uu imaanayo iyo qaabka uu dhacayo dadkana ka codsaday inuu fanaanka soo socdo DJ-ga soo socdo la soo dhaweeyo qaybteeda marka waxay adan xayisiin okay wax walba aniga aan suubiyay lacag la isiya ka sheekeynaysaa east iyo west loo kala baxay dad badan marka waxay weydiiyeen khaasatan rag iyo dumar ka joogo Scandinavia oo dhan Norway Sweden Finland Denmark everywhere Germany waxay ugu dhaheen Abtiliban si fiican u qadaysa hadalkan dhan oo energy gale war sultaana soo socdo DJ-ga soo socdo hal soo dhaweey war hal soo dhaweey wiilka loo kaco boqortooyo family 8.9 million whatever aniga Snapchat-kayga ka dhahay dadkii aad bay ugu farxeen because wax walba soo tabinay laakiin ayagi waxay noqotay in yani ayaga waxay suubiyeen markii showgoodii dhameystayna wixii la kala qaybsaday tanna waa la kala yaacay laakiin aniga ahaan one penny anu kameen imsa qof baa ku daawaday markii aad xaysiiska ku jirtay aad xayisiinsay Suber iyo Serar wallahi dadka mostly 3 milyan 2 milyan 1 milyan iyo bar yes dadka marka waxay suubiyaan videoyaasha challenge-ga iyo ayda ama aflagaatada ama buuqa ah midna way la baxaan Facebook iyo Instagram yani everywhere la gelina TikTok okay adiga DJ Suber iyo Serar dagaal afka mid isku qaadeen ama Instagram-ka ama Snapchat-ka horta ma jira waxba naga ma dhaxeen ayaga wax dagaal ah ma jirin way arintii baa waxa ka cariisiya marka waxa iga cariisiya ku sheegaa wadanka hadda aan joogno qof bini aadan aan waxba ka suubin ama dib ku geysan ina ku suubis frame waa qalad qofku wuxuu ahayn ina ka dhigteed waa qalad qofku waxaad siin ina ku tilbaabto waa qalad ani waxaan ka xanaaqa marka dad waxay dhahayaan 10,000 dad waxay dhahayaan 15,000 dad waxay dhahayaan yani waxa lagu siiyay weena oo dadkan aad u dagaalamaysid so marka arin waxay igu noqotay aniga xitaa inaan ka aamuso xitaa aan ceeb igu noqotay because waxaana ma qaadan mugtaan okay markuu u horeysa shaqadan yaa ku dirsaday shaqadan horta koow waxa aniga igala soo xiriiray Sultan asagoo joogo wali jigjiga dan Sultan intaasaan wada soconay saaxiib ahayn waa isku xirneen ma aqaanatay waxa qaaday ma xagga hunguriga miya ma aqaan ma lacagti baa ka gashay lix jeclo miya ma aqaan laakiin
afkiisu wuxuu iga dhahay abtiliibaan showga markuu ii dhammaado waxaa igu ballan u dhahay lacag aan xawilaad ever qof loo soo dhigin inaan kuu soo dhigo aniga waxaan ku dhahay niyow lacag markaa tirahay even dollar is lacag boogta $10,000 is lacag $1 is lacag okay meeqaa ku qiyaasayaan dhahno wuxuu dhahay niyow 15 above 15 wixii ka sareeya wixii ka sareeya way number waa weyn aan sugay mugtaane way laakiin showgii marka uu dhamaaday horta Ethiopia markuu joogay ninkan xagga social media waa nin xoogaa iska afkaaban mugta qofka been lagama sheega mugta Ethiopia markuu joogay baa sheeko waxaa la soo dhajiyay Suldaan Serar wiilkiisa dhintay way anigu isoo wacay waxaan ku dhaaniyo ka seexataas waan galay Snapchat-ka waxaan u sheegay dadka reer Scandinavia Suldaan Serar inuusan cunugiisa dhimanino arrimo xagga Ethiopia ah oo showyaal ka socda Ethiopia inuu u baaqday dana next night uu soo baxayo wali waxa la qarinayo wadanka uu kusoo dagayo in xoogaa jilaafo loo dhigaa la diidana okay waan gartay taas laakiin aniga markii aan dagaalka si fiican ula galay qof walba oo aniga Snapchat-ka igala socday marka uu maqlay aniga wax ma qaadan qof walba saana ka saartay waa ceeb totally waa ceeb laakiin lacagta qaadanaysid Liibano dadka iyaga maxaa ka galay lacagta waxa idin dhex maraysaa adiga iyo Zubeer iyo Serar wixii aad ku heshiisaan ama lacagta kala qaata ama iskhiyaamaya umada kale ee ku weydiinaysa meeqad qaadatay maxay tahay ujeedadooda okay umada kale ku weydiinaysa dadka horta adaa aragtid adiga taageerayaasha ku ah Snapchat-ka markii la dhaho waxa ka hadlaysaa maxaa ka galay runa kugu dagaalamayaan wali they take personal way سحنا إلى سعوداني they know everything about me okay قف كمرك سناب شات كحاله سعودو وقف علي حرارة أدي وحلاقة شيء دجال كوجل كرا مرك وحي ربان إني وقعدان وحان أدان على حرارة لسين واي الله ما سبدنا ويسيشر كرينا okay and سفع عنو ما قال يعني سرار يديك سوار لبض أنت عنك أركو المويان social media لكن حدنا لما تشوفان أنا احترامي وينقم بقيهن دعونا أن ننقذين لكن لنا عاقة وحي أضغبتيد أندوني أن أصاب بندقنا سلطان سرار وحن أركانين أفقابا ومسكينة ودقين عد آي سايستان يميل أو كغيرغاني أنا أرك دبعضهان ساسان أصورتي وحيسو هاري ديتشي سبير نين إسكا هابية وقصر بضان هذه يشير فرحانة وياسين دعالك سولدو حق قصرك أيو يسوي له مغضى لكن قفك إلى واحد الأحمر ما قرن كريس لبضي إننا منا عن كل شيء جنن دقن وقن يرصع منا عن كل شيء جنن إسكا هابي وفرحانة لبضي اللي بينهم مركز له شيء ويدي له شيء أقول شيء برضه واي واحد بدنا واحد ترى قفك وكجتير مقتي واي أديك أنا لقى يا بعد إن هذا أقونين لكن تعد مركز الله الله dadka qaar baa waxa jira evil ah man ama shaytaan okay in la qosqoslo iyo in la dholo cadeeyo iyo in aan qofka waxba loo qaban ama qofka bin aadanka adaadan rabin quality-giisa iyo dignity-giisa iyo waxa ku qabtay adaadan sheegi karin de qofka hala soconde qofka markii adiga uu ku suubiyo any favor ama hay'is whatever ay tahay at least Snapchat ka soo galay that's the rule of social media waxa leedahay abtiliibaan wuxuu ii qabtay intaas aadan uga mahad celinaya abtiliibaanna anigu waxba ma siinne dhaafo wiilka he do me as a brother just say that laakiin labada mas'ala adiim mid laga waayo waxba qarinaysa marka aan ku dhahayo marka evil marka aan ku dhahayo qosolka iyo dhoola cadeynta DJ Zuberius ku siran okay إنما مركي هوشة أي دماتي أو شوقي أي دكتان أو هوشة أي كفر حشان ما وضع هذشان سرار أما ديتشي سبير وحما إسلام مال دكتان خرج كي محادي قلت لك شيء مرة بعد هوشي مصيبة شيء هرت هوشي ما دام أنا النقطة هول أنا أقول بصدق أنا بين مجعلي موت وان بصدق مجعلي إن فريم لي قصبيه أوكي
dadkii markay ani ila soo sheer gareeyeen Scandinavia up to Liban showga si fiican qof walba wuxuu leeyahay showga si fiican uu noogu dhamaaday ma sha Allah thank you so much shaqooyinka aad qabatay adigana waa qadays ma qadin mana qadin okay lacagta marka social media yaacaysa ama DJ ha dhaho ama Sultan ha dhaho kulay dadkan waxba iskama sheegan okay Sultan iyo DJ iyo waxa jira wiil kale to qaalid ee dhahanka kaas mar rabina shakiis ka hadla laakiin labadaas nin wixii ka dambeystay wala la sii hadlay anigana waxaan rabay inaan ogaado waxaan la isii la sheegayo maxay ahaayeen mugto iyagu afkooda maxay ka yiraahdeen marka sheekistan niho waxay dhaheen waa ku soo wadnaa waa la sii ku soo wadnaa the different mugto waxbana la imasin waxbana ma qaadan haddana anigoo abti liibana waxaan ku qirayaa anigu Sultan waxba kama qaadan DJ-na waxba kama qaadan anybody meeshaas ku jirana waxba kama qaadan $15,000 meel ku soo gaarin ma qaadan okay wadanka aan joogno waa wadan Delandera wax walbana waxay leeyihiin receipt cadeyna loo baahan xawlaada lagu soo diray receipt loo baahan xawlaada marka iyagu ba cadeyn kara iyo wixii la soo diray yes okay sheekadan waxa ahayd muddo ka soo wareegtay hadda absolutely Liban su'aasheedu waxa weeye maadaama ay muddo ka soo wareegtay xilligii Saraariyo ay Europe iyo Scandinavia ay riwaayado iyo showyo ka dhigeen maanta maxaa ka carisay oo xalay la saxan weedi oo saakada studio ay ugu timi adigoo arintii dib u soo faaqday maxaa ka carisay ma horta ku sheego wax walba waqti ala duuba mugta maadaama fursaddu ma maanta timi maanta studio soo boqday intaas de studio xogaa waxa jira de corona mugta waxyaabaha waxa jira dadka ay u baahan yihiin in ay full documentary u daawadaan Snapchat-ka markii la rabo in wax lagu duubo xogaa uu yaryahay mugta aniga iyo isha madaxda inta iskalaba waqti isku maana helin intaas waxa wax lagu duubay banaanka mugta maanta horta aad iyo aad ana waxay ugu tahay farxad in barnaamijka maanta la falaqeeyo barnaamijkaasna markaan daacad ka hadlo aniga ahaan myself inna dib uma qabo mana jecli qof bini aadana inuu aniga iga tirsada dib qof walba waxaan jeclaan in la geliyo arintaas anigu ceebteeda ma qaadanayo sharafteeda yes because intaasan shaqeynayay thank you leema dhihin qosol it doesn't make any sense okay Liban anu cali ahaan malihi Snapchat mana lihi Instagram sufyan saameyn inta la eg bay arintan ku yeelatay Instagram-ka iyo Snapchat-kaba ama dad inta la eg ba arinta ka war helay oo maqalay oo hawshaas inta badan ka hadla horta Snapchat-ka waxyaaboonka aniga aan soo dhigo dadka la baxo waxay galiyaan waa TikTok Instagram Facebook okay meesha aan ka cuslahay awoodeeda taagantaa waa Snapchat videoyaasha inta ay kala baxaan hatta waxay iga codsadaan soo dhameystiran oo aan lahayn qoraal ina u diro waa sii diraan wixii wax weydiiyay waa sii raacay laakiin aniga ahaan xagga ii sheegdo uma dagaal tagin laakiin dadka taageerayaasha leh waa Liban maanta haday ku hor fadhiyo lahaayeen DJ Subeer iyo Sultan Sarar maxaa oran lahayd hadda inuu hor fadhiyaan okay saako kale it's good okay waxaan oran lahaa showga iyo fanaanimada iyo DJ-ga ma awal si ahaan jirin masaada totally different qofna in la qiyaamo ama la dhibo ama fanaaniin badan hadda tan fiiriya fanaaniin badan oo waxa jira loo waco showyaasha dhiga shilin la siin kuwaas oo lagu soo xirageliye hebela oo maanaysa ama caawo waa dhalashadii Cali Xaraare waa la soo sasabay Cali Xaraare anaga mas'uul naga caawo adigana waxba kama ogid marka frame waxa jira dadka in la qiyaamo oo fanka Soomaalida aad ugu badan wali ninkaas Subeerna waa dadka u qoslo u dhool cadeeyo dantooda markay ka gaaraan dhaha هوز على حرارة مركا أنا أهانتي إما قبته سلطان وانين دليرا وفنان
shacabka hadeerta dee usoo baxay horta ma labadooda ma sidaan u maleeyey ma siday igu noqdeen anigu nin waxaan ahaa shaqo ogol waxtar iyo inuu qof walba noolaado aniga ahaanbaba qaabka ilaahay ii abuuray waxaan jeclahay 10,000 adaa helo oo aniga adi aan wada shaqo tagano oo 10,000 la isiiyo inaa 5,000 ku siiyo laakiin labadoodaba anigu kama helin 15,000 ma qaadan dollar ma qaadan tan imika hadday noo soo diraan 10 qaybteeda ma leeyno maxaa la hamus way maxaa la hamus taas waa kaftamaya way inta badan sidaa sheegtay fanaaniinta iyo dadka madadaalooyinka waxa inta badan ay ka cawdaan khiyaamooyin iyaga dhexmara inta badan laakiin waxa ka wanaagsan badan laba qof oo kasta oo wada shaqeynaya ay marka hore galaan ama qoraal ha noqoto ama mid markhaati ha noqoto libana soo ku diin waxa weeye Sultan Seraar iyo DJ Zubair halka ay dhig hawshan aad ku jirtid imika arrimahaasi social media hadii bari ka maalin qolo kale oo fanaaniin ay dhil kula galaan ku yiraahdaan xayisiis caankaasaan ka doonaa si tii hore aan kugu dhicin maxaa tala ku yaal maxaa samee waaba guarantee babe waxba meel igaga xiran baa waata horta thank you waa su'aal aad fiican hadeertaan inay xayisiin ani isoo marta adaana lacagteeda heen anu ma suubiyo hadda xayisiinta markii la yiraahdo Snapchat-ka waxaan ku suubinaa ani iyo sheeg saaxiibkay walaalkay guuladada okay guuladada ay aniga waxa aan lacagtooda aan ahayn ma suubina laakiin ani myself ahaan wax aan lacagtooda haynin ani ma suubiyo go'aanan uga gaaray Soomaali waxay tiri daban kuleelkiisa la arkin dambaskiisa laga ma leexdo okay any fanano Scandinavia joogo hadda wallahi alazim any fanano Scandinavia joogo أنا ما أشجع. I give them message. بحكوا ده السلطان سيرار DJ سوبر. واحد أسجع DJ سوبر كصعدة السلطان سيرار أو سلوا ده الصعدة. Any show اللي كان عيان برموتردة. Any DJ ياشا سكورة تيجا تذكر هول كإسكالة وحين عدان قاطع. أديك له ماشي أنا مرة. dadkii kala kula talanaysa markaa of course way ma laga yaabaa iyaga inaad la xiriidid oo arinta kala hayso markale no way maasantay waaga daawadayaashaasina waxa uu ahaa Abtiliban oo majaajiliste ama nin dhinaca madadaalada aad u fiican oo hadii jeer Snapchat-ka iyo Instagram-ka aad looga xiriiro kaasi oo leh dad far badan oo markaasi taabaca ama sheekooyinkiisa la socda waxaan ka wareysanay qadiyad dhawaan dhacday oo dhaxmartay isaga iyo DJ Zubair iyo Sultan Seraar oo iyaguna ah niman dhalinyaro oo fanaaniina kuwaasi oo uu sida uu hadalkiisa sheegay uu sameeyay xayisiis aad u tiro badan ama muddo uu la soo shaqeeyay hase yeeshee markii dambe dhinacii kharashka uu ka cawday in laga been abuuray oo markaasi meelo badan oo Instagram-ka kamid ah loo soo bandhigay inuu qaato lacag aad u tiro badan inkastoo aan nala joogin DJ Zubair iyo Sultan Seraar haddana anagoo ixtiraamayna waxaanu u soo gudbinaynaa un farintaasi uu halkan ka soo gudbinayay Abtiliban iyo waliba dadka ku xidhan ee daawada in ay maanta ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee dhinaciisa wixii uu qabo tan iyo kulankan dambe daawadayaal barnaamijka kale intaan dib u kulmi doono waa Cali Xiraare oo dhamaantii idinka tagay sida iyo nabad geliyo markale aad baad mahadsantahay Abtiliban thank you